xeradan Sarandi waxa ay ku taalaa degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir halkaas oo lagu dhaqan celiyo dhalinyarada ka soo baxday Maleeshiyada Al-Shabaab kuwaas oo ogaaday in ay ku socdeen wada qaldan maraan maanta tagnay xaruntaas waxaan ku soo dhax aragnay dhalinyaro fara badan kuwaas oo amni ahaan aan wax sawir ah ka soo qaban iyadoo xarunta looga dhax furay xarumo laga heli karo adeegyada bulshada sida qolalka ay jiifan lahaayeen xarumo lagu barayo dugsiga hoose ilaa iyo dugsiga sare xarun lagu hubinayo caafimaadka dhalinyarada waqtiga ay xanuunsan yihiin sidoo kale waxa xarunta ku dhex yaala garoomo dhalinyarada loogu talagalay inay ku ciyaaraan kubadda cagta iyo basketballka Cabdirashiid Ibrahim Maxamed waa agaasimaha xarunta lagu dhaqan celiyo dhalinyarada ka soo baxda Al-Shabaab waxaan weydiinay waxyaabaha dhalinyaradan loo qabto oo mustaqbal ahaan anfacaysa naftooda هذا ممكن لو كان وحان سينا بين نمبر كاس مكان سينا كبعدي waxaa la geeyaa deegaan waxa loo siiyaa waxa xaq u leeyahay loo sheegaa wuxuu xaq u yeelnaa inuu helo qasriir u seexdo gogol nadiif ah cunno waxbarasho waxa meesha ka furan dugsi hoose dhaxla dugsi sare oo hoos imaado wasaaradda waxbarashada qofka markuu dugsiga dhex ka soo baxo shahaado wasaaradda waxbarasho leedahay ayaa la siiyaa iskuul ayaa lagu siiyay contract runtii waxaa kaloo jira farsamo gacanta la baraa baabuur darawalnimada si baabuurka loo kaxeeyo sida motor loo furfuro electrigi waxaasoo dhan la baraa macallimiina noo joogto waxay kaloo helaan sida hadda idin muuqataba waxa ku yaalo garoon kubadda cagta iyo kubadda gacanta ah intii aan joognay xaruntan ayaa waxa yimid wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale isaga oo la kulmay maamulka xerada iyo dhalinyarada ka soo baxday Maleeshiyada Al-Shabaab waxa uu ka dhageystay dhalinyarada qaabka loola dhaqmo intaas kadib ayuu warbaahinta qaranka uga warbixiyay waxyaabihii uga soo baxay booqashadiisa amaanta soo booqday xerada dhaqan celinta Sarandi waxaan ugu mahadcelinayaa agaasimaha guud ee xerada Cabdirashiid Ibrahim oo halka uu soo dhaweeyay marka maanta waxaan la kulmay dadka dhaqan celinta oo ka soo qoostay nimanka nabadgelyada ah ee shabaab dhalinyarada yar oo la marxabaabiyay meesha ku arkay waan cabasho way sheegteen wax badan way amaaneen loo qabtay waxa la yaab leh nin kamid ah inuu yiri waxaan arkaa hadda kor markaan ka soo goostay shabaab inaan imid madaxtooyo galay marka masjid uu ku arkay marka wuxuu yiri masjidkan maxamed shfiya yaa ku tukanay marka wuxuu yiri waxa la yiri waxa ku tukanay dadkii dawladda marka wuxuu yiri dawladdu meena ahan murtid way murtid ma hanu yiri kadibna wuxuu arkay nin askari wato soo hadal ku yiri nin askari wato galaayo masjidka madaxtooyo ku yaalo markaas haduu yiri warnikan muxuu ahay murtid ah masjidka galay dowladda Soomaaliya ayaa xaruntan dhowr sano ka hor ka furtay magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale dhawaan xaruntan oo kale ka furtay magaalooyinka Beledweyne Baydhabo iyo Kismaayo xarumahaas oo sida xaruntan lagu dhaqan celin doono Maleeshiyada ka soo goosata Al-Shabaab Cabdirasaaq Maxamed Faarax warbaahinta qaranka